arintan saraxatan kriptadana sanadkan ina dhaafay aad iyo aad bay ugu soo laabatay haday tahay maartay qoladan 3 arrows la yiraahdo oo ka baxday suuqayadna haday tahay Celsius haday tahay maxay ahayd Allahumma salli ala Muhammad FTX imaka xitaa waxa laga baqaya Kraken in iyaduna suuqa ka baxdo laakiin si yar kooban insha Allah qisada hadayna dul istaagno qolada maxay ahayd Gemini na hadii jeer suuqana way ku horeysay waxaana asaasay labadii nin maxay fikradda muxuu ahaa Facebook qoladii samaysay weeyaan ee asaasayba Mark Zuckerberg uu ka xadayba fikradda labada nin weeyaan waxa weeye laba mataan ah labada nin ee mataanaha ah ayaa maartay asaasay Gemini marka waxay sameyn jireen hadeen website-kooda eegno waxay sameyn jireen wax la yiraahdo earn oo halka dadka waxay ku dhiirigelin jireen maartay inay lacagahooda ay dhigtaan kadibna lacagahooda ay percentage maartay fara badan ay u dhasho say maartay uga faa'iidaan dadkaas waxaana dhacday balaqaadka ay sameyn jireen inay exchange kale lacagtaba u diri jireen oo qoladaas maartay inta shaqeyso hadhowna soo celin jirtay maartay lacagtii iyo profitkii maartay dadka ugu balaqaadeen waxa dhacay qolas Genesis balaqaadkii way ka soo bixi kari weyday lacag aad iyo aad fara badan baa lagu yeeshay wax gaaraya 900 waana soo kaban kari waayeen in maartay lacagta ay soo celiyaan kadibna waxa dhacday 7 bilood in maartay istaba ordaan ragaasi oo kolba ay dhahnaan lacagtii soo celiya dadkiiba maartay faa'iidadoodii doonaya aan ugu balaqaadnay sababtaasana maartay waxa ra'iisiga u ahayd in heerka maartay shirkadaas ay gaadho imaka ay ku cilaan gareynayso wiiga soo socda inay shaashada ka bixi doonaan